guud ahaan shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan salaamullaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatuhu sida aad la socotaan dalka wuxuu ku jiraa dagaal aad maaragtaa u culus oo lagula jiro khawaarijta ku soo duushay dalka diinta iyo dadka howlgalladaas oo khawaarijta lagula dagaalamayo waxay ku socdaan si aad u qiimo badan oo maaragtaa aad u wanaagsan ayay ku socdaan sidaad la socotaanna waxaa maaragtaa guulo waaweyn laga gaaray muddadii 6 bilood ahayd dagaalku uu socday guulo waaweyn ayaa laga gaaray gobolada dalka gaar ahaan Hirshabeelle iyo galbeed maaragtaa galmudug waxaan rabaa maanta inaan idin la wadaago war farxad leh oo shacabka Soomaaliyeed muhiimad gaar ah u leh howlgalkana micno badan u sameynaa kaasoo ah in ay maaragtaa ciidamadeennii ku maqnaa tababarada dalka Eritrea ku maqnaa qaybtii ugu horeysay maanta ay soo degeen maalmaha soo socdana inta hartay ay maaragtaa soo dhameystirmi doonaan iyaga oo maaragtaa qayb ka noqon doono dagaalada lagula jiro khawaarijta saad la socotaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed muddo 2 jeer ayuu Eritrea ku laabtay isaga oo maaragtaa dadaallo gaara ku bixinayo in ciidamadaasi ay dalka dib ugu soo laabtaan kadib markay tababarkooda dhameystirtaan kana qayb qaataan howlgallada socda ay ka qayb qaataan alxamdulillaah maanta ayay maaragtaa noo suuro gashay qaybtii ugu horeysay inay dalku ku soo degto inta hartayna ay imaan doonto waxay dhabarjab ku tahay khawaarijta iyo cid walba oo nabadda maaragtaa iyo maaragtaa dalka guud ahaan dib ku hayso ayay maaragtaa dhabarjab ku tahay dawladdu guud ahaan waxay sii wadi doontaa haddii Ilaahay yiraahdo howlgalladaasi waxay kaloo maaragtaa sii wadi doontaa horumarinta iyo tayeynta iyo tababarada ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo maaragtaa xaqiiqdii kaalin mug leh maaragtaa ka geystay la dagaalanka khawaarijta haddii Ilaahay yiraahdo mustaqbalka dhow waxay maaragtaa Soomaaliya ay ku noolaan doontaa iyadoo aan khawaarij ku nooleen ciidamo tayeysan oo tababaran oo maaragtaa professional ahna ay maaragtaa ay lahaan doontaa haddii Ilaahay yiraahdo waa mahadsantihiin